يا عيل قبا سومالان دورشدي dhacday wuxuu baa ciil qaba qoladii diga rogatay saacadii dambe xaqana waxba ka weydii annagu ma ciil qabno wana ka dawladii iyo qarankii baanu hayno si qiimo qaayale u wareejinay inaanay maalintu saa iga khasaarin baan labada casho soo qadintay Umar baan sheegay imankan halkan uu sheegay marka waa maalin taariikhi aniga ah waxa ilaahay mahadiya maalinta وان حنسني عجانا ما كنت تاجنا سيد وناكسل كنت تاجنا هاي جوان تاجنا كرين هذا الكو ويجو أتكا مركي أنا حفلة كب حي قاربة يقول لي وحاتلي أنا قودني بان هاي مركا أنا ده كرميان سوق على يسمعه مركا ما قرني وش علىها كل ودني معارضة إنه يقول لي شرتيو وانكو يرى عصبايو isadkaynay gama marnayn waxaan xusuustaa madaarka markaan ka soo degay hadallaan idhi oo dadkuna meel baa soo imaka wax lagu keediyana way jirtaayo ay ku guraan hadalka Saleeman Gaalaanu saaxiib nahay odayaasha ugu waaweyn ee Soomaaliland ayaa maalintii labaad igu yiri madaxweynihii ku magacaabay umaad mahad celin marka waxaan ku yiri Saleeman iyo dhowr nin oo canaantay qoladii kulmiye ahayd ونيو قرمت بان هايو وحارس لها هذا بلقوم هاد علينا ياي وحسب أي كيمية ما أنا مهد علينا يقسوي مركا هذو حوش أسوي صوص عتي مددير أو شنس النضوضة وحذافير بدن وأنا أنا لا دري أنا هاي صاحب كي محمد شكري ودب بدن با رجع سوقاتي أما إن سوق هذا الني إلهي ما هدي ما أنت قبل شوقنا waxa Soomaalidu si badan bay wuxuu tilmaanta horta waxa fiican inaan laga lumin ta lagu heshiiyo inaku dad baynahay reer Soomaaliland hadii alla ilaahay wax ku heshiiyay qarannimo qaatay qarannimadii la soo noqday dastuur samaystay shuruucda iyo dastuurkaas waxay sheegayaan shantii sanadood baa in la doorto madaxweynaha بدنا أنتي ما كدورشوين كينور دعين ما يدعين مدحويننا إنه شتى سنوات كويكستو مركان مدحوينه والبا مركو وحكو درسدو soo noqoshadu dib bay ku noqonaysaa marka qoladii hore waxa ila tahay de ka dhamaatay oo ninku haduu shantiisa dambe qaraacdo waxa ila tahay doorashada cid faantooy ma ka tiraa waxba nu helay cid waxba laga helayba way ku adkaanaysaa inuu soo noqdo laakiin waxaan kula dardaarmayaa madaxweynayaasha dambe oo Cabdiraxmaan Cirro ugu horeeyo ninkii doonaya inuu soo noqdo shantiisa ayanu dhaafin waa sida sharcigu yidhina laakiin haddii shanta la dhaafiyo oo wax lagu daro dee waxaad sii garaacatay termkaagii kala sii garaacatay waxa kaloo meesha yaala haddaad weli ilaahay tahay dadkeena reer Somaliland oo waliba reerka Isaaq la yidhaahdo ugu bowdheer yahay waa xiisoolayaal hadduu weli la joogo waxay jecel yihiin inay isbedel sameeyaan isbedelku ima kun maahay mar walba saas la jecel yahay waxa daba maantii ay ku dhacday oo aanu la qaybsanay qoladii mucaaradka ahayd ee aad u soo rafaaday ayagu waxay faan ka dhigteen inay guuleysteen annaguna faan waxaa noo ah inaanu guuleysano laftaydo doorasho xoro xalaal aanu qabanay aqbalay natiijadii xil wareejino qiimo iyo qaayala aanu samaynay cadawgiina aanu kaga naxnay sidaa marka taasna waa taasaan noo qoran annaka samsamna waxaan kala dareenahay qolooyinkii aanu saaxiibada ahayn ee lahaa war xaggana ay u dheeliyeysaa ee soo yaaca anigu raganimo uma aqaano waxa ragga qaar ku faanaan oo ah dawladdan soo dhisay oo aan ka tirsanahay oo aan macaankeedii wanaaggeedii soo maray hadday sii ciirayso dee way la ciiraysaa anna halkaas umaynu ku wada ciirayna markaa qiimo uma aqaano saacadaha dambaan qolada soo rafaaday guusha la qaybsanaya
ina cigaal baa ilaahay u naxariistay maalintii SNM iyo jabhadii SDF iyo soo galeen sidaa u xasuusataan wuxuu yidhi qolooyinka 11 habeenimo soo kaca markay saacadun ka harsantay saqdii dhexe ee doonaya macni guusha inay la qaybsadaan jabhadaha dalka qabsaday looma baahna buu BBC ka hadlay maalinta imika yaa ciil qaba Somaliland doorashadii dhacday wuxuu baa ciil qaba qoladii diga rogatay saacadii dambe xaqana waxba ka weydii annagu ma ciil qabno wana ka dawladii iyo qarankii baanu hayno si qiimo qaale u wareejinay ilaalinayna qarannimadii taas waa taa